waan ku salaamay ka waran adiga oo inta school dhamaysay jaamacad dhameeyay lawyer-nimo ku qalin jabiyay dabeetana sanad qura markaad shaqadii waday wiilkii ay iscalmateen aad is aroosteen kadibna wiilkii kugu dhaado shaqada faraha ka qaad adiguna markaad ku tiri waay kura maya shaqada ka qaad marwaad iminka tii ana ka mas'uul ka qaad fara adiguna aad khilaafka ka fogaanaya adeecaya ninkaaga aad ku tiri okay halkaas ku jooji meeshii aad tagtay warqadaad dhibtay shaqadii inaad ka tagtay ubadkii halkii kaaga bilaabmay 6 caruur oo is xigta oo sanad kala weyn iyo wax yar 6 sanado 6 caruur inta dhalaysay dibad aan arag keliyada ubadkaasuna aad ku shaqeynaysa dheriga sariirahooda iyaga dharkooda aad ka shaqeynaysa 6dii markaad dhexda ku jirteen uu kugu yiriyo ilmaha u dambeeyay markuu dhashay uu kugu dhageyso anigii adigu naf baan leen inaan nasanaan u baahanay sidoo kale waqti isu helaan u baahanahay awlaadu qudhooda in la dhalo uun ma hayaga qudhooda waqti la siiyo u baahin oo laabta la geliyo soo mudaynu hakinana dhasha macnaha saan anigii adigu waqti sugal u yar nasano maskaxda ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo ma daratay jir ahaanba u nasano waxaan u baahanahay inaan muddo yar joojino hadhowtan hadii ilaahay ka dhigo ilaahay weenu yaryarnay wali intaan dhali karna ilaahay inoo qoray waan dhalaynaa dhalo laakiin muddo aan u baahanahay hakis gelino oo macnaha aynu dhasha halka ku yara joojino muddo kadibna aynu dib isaga u bilowno inagoo tii ilaahay barbar wadna hadana markasta ninkayga ku adeecaya marxaba baan nari anigu marna amar adigu aanad soo jeedin tii shaqada tan dambe haye inaan mihii u dambeeyay markuu 5 jir gaadhood madrasada geysay adiga guriga cid la isku soo beegmay laanada guriga dadna waxaad ku tiri dhageyso markani waa markayga muddo 10 sano ku dhow adiga iyo awlaadaadun baan ka shaqeynay dharigiina cuntadiina halka seexanaysaan dharkiina wasaqda ah guriga wasaqaysan intaas baan ka shaqeynay hadda waa markayga waxaan u baahanahay inaan banaanka u baxon shaqo dib u codsado mar hadii maanta ilmihii u yaraayan ku mashquulsanaa madrasada geey aad buu xanaaqay wiilkii wuxuu dhayaa waa maxay shaqada ka shaqeynaysa maxaad weyday baahida ku haysa ii sheeg waxaan ku dhahay baahida ay haysa wax weey baahi maskaxeed mid cunta ima hayso laakiin maskaxdeedu waxay u baahan tahay inay banaanka u baxdo 10 sano iyo dheeraad gurigan dhexdiisa quran ku jiray soo maskaxiyan baan u baahan inaan u soo degsado maskaxda oo soo laabto xaqna waan u leeyahay aqoonteedina waan leeyahay adigu waa maxay waxaad iigu diidaysaa ilmo yar iminka inaga dayacmayo gurigii joogaana ma jiro inta kale soo maaha 4 saacadood quraan soo shaqeynaya soo iyagoo wali iskuulkii madrasada kuma qan baan soo laabanaya waxay ka dayacmayaan ma jiran hadii adiga tii hadii awlaad tahay toona wuxuu dhahay maya walaashay baad la hadashay oo walaasha way tahay laakiin saaxiib baad gaar u tihiin guriga kuugu timi waxaad ku tiri walaalay sheekadaasan odayay la soo qaaday halkaas aanu iska taagay shaki baa igu jira soo walaasha waxa ku dhahay oo maxaad ka shakisantay waxaan ka shakisanay waayu iigu diidaya banaanka inaan u baxo waa maxay waxa uu diiday inaan soo ogaado ku qarinaya banaanka walaasha waxa ku tiri meel qaldan baad ka fikirtay waxa laga yaabaa inaan waxba qarinayn laakiin uu jasiis ka jecel inaad guriga dhexdiisa fadhido soo xagaha ka fikirin bay kugu tiri laakiin adiga wali shakiga uu ku taagan yahay aha sababta uu u diiday banaanka inaad u baxdo muxuu qarinaya xafiiskii baad codsigii geysay muddo kadib shaqadii baa ku soo baxday maalinta wuxuu sameeyay xanaaq iyo qayl intay tiraysay in leeg okay sax baad ula hadashay waxaad ku dhageyso anigu 10 sanadood oo aan isqabnay adigan horumarkaaga ka talinayo subax markuu waag bari waxaan diyaarinayo quraacdaada cashadaada qadadaada dharkaad ku shaqo tagaleed ilaa kabahaagan tirtiraay buugtaada iyo xafiiska waxaad kala timid dhanban ku habeenay 10 sano maalin kaman caajisin in horumarkaaga kugu dhiirigeliyo kugu dhahdo soco waayo maanta markay tayada timi horumarkaaga u diidantay wuxuu dhahay maya sidaa ka rogin hadalkanka laakiin aan waxaan jeclahay guriga joogtid waxaan dhahay okay guriga waan joogaya kama guurin laakiin inaan wax ku daro waan jeclahay markaan muddo 3 bilood shaqeynayay qorshiguu bedelay wuxuu dhahay arintii dhiilka ahayd heshiiskii ahaa ilmo inaynan muddo dhalin waan ka noqday dhakhtarkan soo raacayna makaanka wixii lagu xidho waan ka soo furayna waa inaad ilmo dhasho waxaan dhahay wow baahida degdeg ah soo korodhay maxay ahayd ilan adigu xagaaga amarku ka yimi waan kula qaatay kugumaan diidin xataa kuma dhiin aniga choice baan la waan rabaa inaan ubad dhalo adiga taadan ku tixgeliyay sabab wuxuu dhahay may guriga waa inaad ilmo dambe ku soo kordhaa bishanay inuu nala dhaafo ma rabo hayaan isaga koori laakiin markaan baxay waxa iisi cadaatay banaanka wixii leeyahay cilni inay jiraan oo iminkana rabo inuu dabar xoog la igu xiro oo ah ilmo because hadaan ilmo dhalo banaanka uma baxay ilmahaygan ka yargareynaya soo waxaan warkan uu ii cadiyahay waa maxay wax banaanka yaala bal ka waran hadaba lawyer baa tahay 3 bilood ee hore aad shaqeynaysa kadib markaad muddo 6 bilood shaqeynayso murankiinina wali taagan oo ah ka tag shaqada isaga reerkii uu ka dhashay markuu u sheegay hooyadii aad bad isugu wanaagsanahay walaaladii kale aad bad isugu wanaagsanay hooyadii walaaladii markuu u sheegay waxa ku dhahay maxaad gabadha u xirxiraysaa hadda ma ilmo caruuraa joog
واي ugu diidaysaa inay shaqaysato intaasoo sanadood bay kuu tuurtay jaamacadeedii iyo sifiyadeedii adigii ubadkaaga idin keergarinaysay hadday shaqaysanaysa daa gabadha soo xaggaana garwuu ka soo waayay iyadoo weli buu qotaagan yahay waxa kuu timi xafiiska kuugu timi qof dumara oo dacweynaysa ninkeeda yaa noqon karta waa xaas uu qaban ninkaagu oo suuqa joogta bal arrintaas ka war hadday kugu dhacdo markaad ku tiraahdo lagu soo gudbiyo kuu timaado eed wada hadashaan magaca ay qortay waaba magaciisii tilmaantiisu waa isagii caadi baad usii wareysatay waaw waa ninkaagii qofka ay ka baqanaysaa ilaa moobilka ay kaa tustay bas wada ku tiri waa ka ninkaygu ma taqaana inta caruur leedahay ma taqaana aduu haddaad lix haysatay iyaduna 4 bay haysataa oo sidoo ku dhalay adaa yaqaan habeen guriga kama dhixin meel guriga ka sheekee bal arrintaas hadday kugu dhacdo dumar oo maxaad السلام عليكم قصة صور دقي تيك توك قصة سولوقة وحيقول بحي قيبتي لبعض ماذا قيبتي لبعض ماذا قيبتي لبعض ماذا قيبتي لبعض واتن رالنا هذا إن قبل مركز يسوق شيء سدح قريبا مويتي مقع قصة حن سببت أد دعوة داخل كانوا تمية دعوينيسا سببت أد دعوينيس وحنا هبلاي هبل بيتري وحن دعويني يعني كيجا سببت أنا دعويني وحويا حقوق ضيق قبيتان بنقيب واي إن نكاجا إن حقوق الشقية مقالة من يقول شو وضن كم سوى وكم قيا هاي حقوق الشقية واحد كم بني هبل بوك الشقية حمحوك هاي بوسيشن كم قعالة بوهايا مقعيسو صدحان واسدا نمبر كونتاكت جاي ماشي الغلا حريري وحقيقي قرت النمبر أنا ولا جاي بعرف أنا نمبر صح عندك وأقاني نمبر أنا ولا جاي بعرف هذا عضين بانو باهنا هاي صوتو تايد قف سوقا جوجو قف ويسكا شيغان كرا سو maxaad ku cadeynaysaa ninkaaga waxay tustay sawir mobilka ugu jira iyada iyo isaga iyo carruurta waliba waxay ii raacisay qasab baan kaga qaaday sawirkaas ma ogolayn saan idin sheegay waa ninkayga maskaxdeedii wadnahayga bam inuu ku qarxad moodaysa laakiin waan is celiyay warqadii qalinkii aan qorayay maca qalinkii waan qaban kari waa didid farihii baa qoyay buug wixii warqadii aan wax ku qorayay xataa inay iga jaxjaxantaan ka baqay macnaha sidoo dididkayga ugu daatay سؤال مركا ويديه سببت هذا دعوينيس وحن دعويني حقوق ذي من قيب وما حي حقوق ذي بتاع ذي نين كيجا حاس كلو لي هاي سو حن وتاج لا هاي أدي أنا حق هذا سيو هبين كده ما أنت تدري شو أنا هبين كده ما أنت تدري شو سيدا كورا على نايم مركو هرق صدق واحد هذا أنا جانو بقول جيجا شو نين كايس برناي وأنا سكورسني ورت أنت أنا سكورسن مركي شو كان سجوا حيودا حاسب الله هاي وانكو أقول رالي بانكو أها dhaqamadiisa kale waxaas waan ka helay markii habeenkii meherku dhacay oo maanta kale waxa la hadlay walaaladay waxa la baritaan gabadha ka soo doonanayna waa ka caawo kale fiidkii uu ii yeeray meherkii waxaan rabay inaan ka wada hadalo wuxuu dhahay shuruud baan wataa laakiin waa shuruud aad u fudud xas baan qaba sidaan ku sheegay ha way umushay ilmay dhashay soo dhibashay waxaas inay ku dhacaan ma rabo waxaan rabaa toddobaadyo inaan iyada la joogo adigana aan ku imaado maalinimo iyadana aan toddobaadyada iyada ku koobnado markay ka soo baxdo umusho ay soo bogsatana aan si fiican ugu sheegada anigu xaas baan guursaday kadibna aadna habeenkaaga maalintaada iyadana habeenkeeda maalinteeda maalinta ma aqaan bit waxiga qaldana ma waxaan ka baqayay inaan kansalo guurka oo la yiraahdo waad ceebowdo waa tishala tala laha waa la soo doon waa laga noqday ma caruurtan baa naga dhex qornayd ma anigaaba markaa jacaylkiisu ii indha tiray waxay tiri ma aqaan si fudud waxaan ku dhahay dhib male soo toddobaadii uma intii bogsanaysid sidee umusha ka baxaysa dhib male لكن وان كشل لا يوان كقومو مينا ما أنت سهل نرهدو دمير كي جبان يبسدي وإري عادي تمقي وحيتري وان أقل قال لي إسلام ركب وان والله أنا قرو قرح بدن بو إيه دقي بيل وفيلم ويسيناي لكن شو قتاني وهل من هيسن وان والله عمر كيبا قورمت شيء قصاصان والله أور كي جواسوين هذا قورم ويقول ده هاي قبل سوا قبل مصير بدن iyada anigu qurana dhibtu noqon meesha hadaan isqabanay reerkan anigu ka dhashay aabahay hooyadii walaaladii dhammaan iyada raacayaan oo la saf noqonayaan soo dhibtu way igu sii badanaysaa adna waadigan cuslaaday inaad soo kala fududaadaan raba iyaduna ma adartay waxooga goore ku haboonta aan si fiican ugu sheego ha ka warwari lambar buu isiiyay lambarkaas markasta waa xidhan yahay laga bilaabo xilligu ii iman doono ilaa xilligu iga tagayo ayuu bu furan yahay sidii baan 4 caruura ku dhalay markastoo aan buuqo aan qayliyana waxoogaa lacaga la isiinayay ma lacagtaas ay indha sarcaadisay ma aqaano sheekadu waka waxaan ku idhi haddaad markii hore ogolaatay sidaa doonto waxa jira heshiisiyo aynu sibiq ku galno oo aad inoogu ballaadha kugulama yaabayo haddii 4 caruur meesha timi haddii aad leedii guri qurux badan iyo waxoogaa aad hanti kale nagu filan maanta biila waanu haysanaa reerka maxaad hadda buuq ugu furaysaa soo caruurtu meesha ma joogto ma fiicna inaad reerka sidaa ku hayso waxay tiri walaashay I can't awoodo
qalbigan ka gubanaya intaan ooyo iyo intaan qoslay intaan ooyaa badan reerkay aan ka dhashay qaraabadeedii iyo gabdhahan saaxiibkan waxay ugu yiraahdeen waa lagu qarsadaayo qurun baa tahay awlaadii way weynaato way la hadasho waxay leedahay aabahay baan u baahanay hooyo hebel iyo hebel nala darsa aabahood ba masaajidka geeya aabahood ciida raaca aabahood ba suuqa geeya waayo aabahay anaga hooyo habeenkii qoran noola joogaa anigu waxaan u baahanay inaan gacanta qabsadon ku xaragoodo waxaan u baahanay in ag fadhiisto oo shaaxa wada cabnoon u sheekeeyo waxaan u baahanay cid aan la qaybsado waayahayga marka ka badan inta ma qarsan karo walaal hoostan ka gubanaya gudahan ka gubanaya su'aal baan ku celiyay okay haday sidaa tahay waqti kugu filan kuma siiyamiya ama maalin ha ku yimaado ama habeen ha ku yimaade waqti kugu filan adiga caruurta idin ma siiyamiya waxay dhahday salaada casar markuu ka soo baxo maalintii uu shaqeeyaa shaqada markuu ka baxana gurigiisa ku ruuxa casar markuu soo tukado iyo cishaha inta u dhaxayso anaga nala jooga casar markuu soo tukado noo yimaada maqrib gurigu ku tukada cisho marka la tukadana uu naga baxaa aragtidiisu intaas ay tahay hadaan dhalayo hadaan xaamil ahay hadaan walacahay hadii ilmo iga buko hadaan anigu buko ma arkayo numberkana intaas uu furay telefonkan ay ii qortay waligay ma arag number caadi oo saxan ku aqaanay kiimaha okay ka gudub waxaan dhahay markaa haday sidaa tahay oo hadda leedahay anigu ma awoodo Soomaali hadaynu nahay waxayna ku xidhiidha qaraabo hadhoona maxkamad waa lagu weydiin doonaa reerkii adigu aad ka soo jeeday ma ku war celisay oo ma tiri sidan ima dhaqdo waxa aaba malihi walaalada waan u sheegay way la hadleen gurigaygan ugu qada kariyay casar dabadii buu noo yimi walaalada waxay dhaheen markii hore gabadha naga soo doonanaysa anaga sidan noogu maad sheegin ha yeeshee markii dambe hadii halka degteen baanu aragnay waxaanu samoodinna idinku raali iskaga tihiin mar hadaan gabadhi noo soo cabana waxaanu si dhex gelina reerka imankana gabadha waa tan way cabanaysa hebelow ama gabadhiisa dumarka loo qabo u qab ama ma hayn karayo nagu dhac wuxuu dhahay sida aan u qabayaan ku heshiinay waxaan ka bedelayna male walaaladay markaa arintii xumaan bay isu bedeshay waxay dhaadeen sharciga la tiigso wixii garabaanad u baahan tahay anaga ku siinan markaa xagga waan ka soo dhamaaday markaa waxaan ku dhahay adigu intaad gaar ugu yeedho ma la dacwido ma tir wareedhe awlaad baa joogto de ehel iyo wehel u baahan oo anigii baa de u baahane wuxuu igu yidhi bay tiri hadda xumadan igu soo kiciyay adaa doorto inaan ku qariyo hadaad saa ku jiraysan ku jira hadaad tagaysan aday ku taala marka best bay ana way iga dhantay horta dacwadii waxaan ku dhahay okay dacwadda waan qorayaa galkeedaan u sameynaya iyada sagana waa loo dirayaa adigana teleefankaaga markasta ha furnaado hadii su'aalo dheeraad lagaaga baahdo wayno iyo markaan ku soo wargeliyay ku dhahdo waan furayna gabadha markay ka baxday ilmo iyo duuf wax loo kala garin waayo kulul baa saa ii soo dhaafay wadnihi wuxuu ii boodbooday macna inaan qarxayo kale warqadii wixii waan laalaabay warqadii xataa waan dhamaystir kar waayay waxaan u galay qolka igu xiga ku sii xigo oo gudoomiyuhu ku jiro waxaan dhahay gabadh yar oo dhaleba iskuulkii laga soo qayliyay waxaan rabaa inaad fasaxdid oo aan berrita shaqada dhamaystiro wuxuu shaqadii ma dhamayn waxaan waa run berri baan dhamaystiray gurigaan imi guriga waxa dhaqani ahaa asaga 2 o'clock buu yimaadaa aniga laakiin waxaan tagi jiray 12 ama 12 barka guriga markaan tago intaan qubaysto oo dhar qurux badan xidho oo unsado cadarsado inaan caruurtana deyrka ku sugan soo dhaweeyo qadada anigu diyaariyo maxaan ku dhahday gabadh isaga ehelkiisa ah oo ugu yaraan 5 sano hadda ila joogta markii iminka aan shaqada helayayna waxaan qabtay gabadh shaqaala oo nadaafada iyo madartay waxa iyaduna noo qabata marka ana cuntada qadada diyaarin jiray gabadh iyaga sii kariyay miis baan ku wada cuntayn jirnay weligayo 12 sano aan isqabnay weligayo meel baan ku wada quraacanay meel baan ku wada qadinay meel baan ku wada cashaynay maalinka aanu xif baan ku dhaafay gabadhi maxaa ku dhaxan waan xanuunsanahay aqal qol ciyaal ku leeyin baan galay hoostan ka xidhay sariir intaan jiifsadaan idhu waan ooyayaabaan saa wuxuu sii daay oohina oo intii marka waxaan kali anigu isku qoomamaynay inuu isaga guursaday kama xumayn waayu ka waaye shaqadaada uga tagtay baariyad baad u ahayd wax kasta isugu soo jeeday hayabaad lahayd isaga gurigan ugu xidhnayd waxa uu ka waayay waa maxay sababta uu dhabarkaaga ugu adeegtay intuu ku yimaado muxuu kuugu qori waayay waxaan rabaa inaan guursado gabadha kale muxuu nolosheeda iyadana sida hogaamada ugu riday waxa jiri sidii wax qandhay isu bedesho oo intii waan gamcayba waliga qandhada inta ka tabtay ma suurtay waa suuray bay tiri wuu yimi wajawigi ka bedel ilaan awal qof diyaarsan wuxuu dhahay maxaa maanta ciyaalkii horta yimi hooyamad hooyo waxaan soo taaqalkaasi soo xidhatay isagu wuu yimi mar dambe oo gurigii galay oo cabaar wuxuu ahaa dadka qadada dabadeeda seexda uu dharkiis ka bedelay oo qadeeyay oo yaan qolkii soo galay anoo saa oo kala dheer markaas wuxuu maxaa kugu dhacay maanta aad qolka u xidhatay markaas aan dhawaan xanuunsanay wuxuu oo saaka adigoo labisanayaan ka tagay wuxuu xanuunka degdegay uu ka dambeeyay baan idhi
galabtii waxay tiri banaankaan u baxay aniga de gaari waxba ma wato qof shaqada ku cusub baan taxi baan u yeedhay meel kafteey wax laga cabaan tagay koobajinaan dalbaday waan isla shawray markii hore waxay tii aan shaqada kasii socday waxaan idhi kiiskan waa inaan wareejiyo oon qof kale ku wareejiyo oo aan dhahdo qofkaasi ha qabto laakiin markan waxaan idhi maya gabadhaas sida ay ku aamintay waa inaad shaqadeeda uga soo baxda shaqada waa adigana waa inaad adayg iyo adimaad isku taagta yeelataa go-aankaagu adiga ha dambeeya laakiin ta gabadha waa inaad meel saartaa dabeedna waxaan u malay halkani ma wada qaadayso qaybtii saddexaadna waa tan keligii baan meel fadhiistay waa shawray waxaan dhahay adadayg waa inaad muujisaa adiga taada hortaba meelha ku taale gabadha meel waa inaad la saartaa arrinteeda gurigii baan imi habeenkii soo jeed badan anigoo isbedelay dee waa taqaan dad muddo dheer 12 sana wada nool baan ahay wuxuu dhahay maxaa khaldano horta markii uu yimi maalintii markii aan imi guriga matag wax la yiraahdo baan dabaal joogsaday maalintii uu ma tagay intii aanan waa markii aan guriga tagay aan qolka intaan hoosta ka xiran waan idin soo sheeka dhaafay galabtii waxaan dhahay arrintu weynaysaa hada habeenkii gurigaan ku soo laabtay wuxuu dhahay maxaa bedelan way kulayl baa dareemay banaankan u soo baxay waligaan u soo dhaxay banaanka daarada u soo bixin biyo doono maxay kala doono hadal yaan idinku badaalinayna meeshan way yar tahay soo sheekaduna aad bay u dheertay soo waxaan rabaa inaan inta madaxa ka soo goosano macna muhiimadda meesha gurigii baan imi xafiiskii baan subaxii dib ugu laabtay shaqadii waan dhammaystiray isagii warqad baa loo diray maxkamadda looga yeeray xafiiska garsoorka iyo maxkamaddu waa kala laba oo de markay shaqo ku taalin bad maxkamadda tagaysa maalinkii ballanku ahaa wuxuu ii weydiiyay subaxii maanta miyuu kiis maxkamadda ka yaala ana si fiican baan arrinta ula socda markaas waxaan dhahay waayo markaas wuxuu dhahay maxkamaddan arrin ku leey maanta markaas waxaan dhahay maxaa ganacsiga soo wuxuu dhahay maya arrin kale ay ka gashay maya ku dhahay ma been baa beenka wanaagsan bit weliga waa maalintii koowaad waxaa taan isaga been u sheego noloshayda intaan la noolaa maya ku iri meeshii baan iska yimi si fiican baan isaga hornimay aniga isagii sababtu tay waxaa kamida go'aanadan qaatay isagoo afkiisa ka yiraahdo gabadhan ana qaba laakiin adigu marna ha u sheegin waxaan dhahay hebel gudoomiye markii la soo wada fadhiistay waxaan ahay lawyer hebel waxaan u dooday hebel xaas la qabo 4 caruur leh mudanahan ay hortaagan baa qaba soo waxaan rabaa isaga inaan waxoogaa su'aalaha weydiiyo waxay tiri miiska yar la soo taago hadduu jajabin karayo maalinta daqiiq buu ka dhigi lahaa sidoo uu haystay macnaha gamciisa iyo jawigiisa say isu bedeleen anaaba cabsaday weliga wajiga ku maaragta la noolaa waxaan dhahay mudane hebel soo matihid haabuu haystay ciyaalka inta la hurufay waxaan dhahay marwada halka fadhida waxay kugu soo eedaysay inaad xaaskeyga ay tahay 4 caruur ay isu leedahiin arrintaas u runmad wuxuu dhahaa waxay kala kugu eedaysay xuquuqda qabitaanka inaad ka gaabisay qayb kamida oo aanay Google ka helin la joogid ka helin kaliya gurina waad siisay biilna waad siisay soo arrinta maxaa ka jira waa heshiis soo marka aniga dacwadeedii man halkii ka bilowday inay xaaskaasi dacwadda soo gudbisay inay maxaan ku dhahdaa rabto in ay xuquuqdeedii hesho haddii xuquuqdeedu weydana qaybta labaad loo gudbo horta isagii su'aalaha la weydiiyay wax dafiraadi meesha ma jirin waxa la weydiiyay arrinka inay banaanka ku soo eegeen wuxuu dhahaa waan ku soo eegnay iyada sidoo kale maalinkii anigoo waxa la dhamaanta halkaas maxkamadda inoo joogsa isagoo arkeen iyadoo u tagan gacanta qabsad because iyada ah qofkan shaqeynay manuu oran tan baana qabada meesha waa maxkamadda uu iska aamusay wuxuu laakiin hadalka ku daray samcadeeda ay rabtaa inay ku ciyaarto qof uu nin weyn oo madaxa baanahay maxaan ku dhahdaa ninkii garsooraha wuxuu dhahay xaaskayga kale darteed buuri ayaan arrintan u sameeyay macnaa aanu igu diir qalay laakiin garsooraha arrinta hor joogsada wuxuu dhahay xaaskaaga kale halkan lagama hadlay waxa laga hadlay gabadhan xuquuqdeeda sida u siin lahayd waxaad waan iska soo baxnay gurigii maalinta uu soo habsaamay wuxuu yimi isagoo bismillaah war miyuu qarxi rabaa ridaa markuu soo wuxuu dhahay inuu wada hadalaan rabaa aqalka qolka hudadu dalaqina wuxuu maxaad sameeyay waxaan adigu maxaad sameeyay maada aniga ay oran kara maxaad sameeyay adigu maxaad sameeyay wuxuu naagtaas ana qaba waxaad u timi gurigeyga inaad dumisaad ugu laabato shaqada waxaan dhahay maya anigu gabadha ma aqaano iyaduna ima taqaano qofka garsoorka gudoomiyaha markay timi waxa loo eegay qofkii xilliga banaanay shaqo gacanta ku hayn anuuna noqday nasiibka iyo calooshayda nadiifta ku ahayd baan igu soo beegtay inanta islaameed iminkana wuxuu dhahay ka bax shaqadaas waxaan kama baxayo wuxuu shaqada ka bax qof kale ku wareej waxaan kama baxayo ilaa aan dhameeyo wuxuu dhahay haday sidaa tahay aniga ii dood anaa ku siinaya lacagta aad maxaan ku dhahay igu waxaan ha sheegin inanta intaan ka imaada adiga ka dhinacaaga imaada ma waxaad mooday dadkii la iibsan jiray balam iyo dhaarban ilaahay hortiisa kitaab baa la igu dhaariyay qof kasto ii yimaado inaan ugu shaqeynay sida daacada dhaartii maan ku shaqeynay inantaana ilaa yankiiskeeda meel ku ogaada kama baxay
halkaas anaga horta colaad inooga bilaabantay kiiskaas intuu soconaya colaad iyo rafaad iyo qaaylo iyo buuq iyo hadal aanan weligay uga baranin ba horta noo bilaabmay yelkadeeda waan ku adkaysanayay isku soo noqodkii dambe isaga waxa la weydiiyay arrintii ma ka soo fakartay gabadha xuquuqdeedii ma siin kartaa mise ma siin karto wuxuu yiri sidaa aan ku qabo si aan ahayn ma rabo inaan u qabo soo aniga qaybtii labaad ee la iga sugay waxay ahayd haddaba furitaan inuu meesha yimaado waxaan kaloo inanta waliba xasuusiyay furitaan hadduu yimaado lacala baan ku iri furitaan hadduu yimaado horta maalinkii iyada way isku dhaxyaacday waanu caqli celiyay waxaan ku dhahay furitaan ha ku degdegin gurigaagii aad ka soo fakar awlaadaada eeg nolosha ku jirtaan eeg wax badan soo qiime furida ha ku degdegin haddii se lacala aad ka fursan weydo meherkaaga inaad leedahay ogow sababtu tahay sifaha la isku furay isagaa keenay meherkaaga waxaad waayi kartaa markaad adigu bilaa reason tiraahdo anigu warqadii baan rabaa laakiin iminka iqab ma diiday inaad qabto warqadeediisi waad leedahay xuquuqda meherka taana ogow marka waxay tidhi meher badan baan lahaa oo dahaba hadday sidaa tahay ma baan ogeyna waad mahadsantahay maalinkii labaad markuu soo taagay waxaa lagu dhahay arrintii ma ka soo fikirtay wuxuu dhahaa maskaxdeedu degan baan ka soo fikiray inantaas sidaa aan u qaba si aan uma qabi karo waxaa la warqadeedii haddaanad dhaqanaynin maxaa koo taxay kuma sanad warqadeedii siis wuxuu diyaar baan lahay waaba nin go-aan soo gaaray marka aniga hadalkii waxaan ku soo celiyay waxaad la socotaa inaad meherkeeda iyo xuquuqo kale oo waajibay ay maxkamaddu ku fari doonto soo diyaar uma tid inaad aqbasho haa buu yidhi waxaa la qoomeeyey waan dhowr cashay maxkamaddu soconaysay oo maalin 2 iyo 3 kumay dhamaan laakiin idinka waan idin soo koobaya waxaa go-aan lagu gaadhay inanta warqadeedii inuu siiyo meherkeediina uu siiyo caruurta gurigii lagu hayn lahaa iyo biilkoodiina uu bixiyo soo maxkamaddu sidaas ay waajibisay muddo dheer kadib arrintiisaasan kusoo gabagabaynay waana idin soo sheeka dhaafay intuu la hadlayba wuxuu ku dhahay naagta kuudooda sa anaa qaba ee la socoynay xaaskii gurigaaga dartii uu dumay way ii soo sheegtay meel gaar ah ku kulanay waxaan ku uri ninkaagu haduu waalan yahay isaga waa maba aqaan dafiraad baan ma aqaan ma garatay soo haduu rabo inuu diidan yahay inaan anigu adiga ku doodo waxa jir walaal waan iska garanayaa iska dhaaf wuxuu isleeyahay gabadh weeyaan yaari u doodin oo maartay meel kale wax ka cabiratay hadal yaraan idinku soo inaan soo ururiyo sheekadu soo ururiyay saciidii bay ka badan tahay oo de waa dhowr bil dhan maxkamad soconaysay horta tii inanta halkaasan ku soo hubsaday galabtii markay iga soo gabagabowday guriga hooyaan cabaar ku maqnaa waan soo laabtay madaxaan soo yara degsanayay fiidkii buu yimi si fiican baan wada hadal waxaan ku leeyahay halkan soo fadhiisa saaxiib waxaan rabaa warqadaydii ma halkan aad igu siinaysaa ceeb la'aan anuu reerkayaga iyo kiina midna u sheegin oo waan qun yar baynu kala soconaa dalqadaadi maqashiinaysaa mise sharciga iyo maxkamad baan mar labaad ku soo taaga wuxuu dhahay oo ma waxaad ku soo tashatay labadayda guriba inaad dumiso waxaan dhahay may inantaas iyada dooqeeda igu timi aniguna anaa dooqayga ka hadlayo ima qabaysido isma qabi karno warqadaydii miyaad siinaysaa mise mar labaad baan garsoorka aadaa oo maxkamad baan kugu soo ogaa muddo badan cirku intay ku jirto horta igu rubay ku jirta warqadaad sheegaysaa soo wada duuduub inantaa waxaan kala furiin dambeynay 2 bilood iyo 20 habeen maxkamadii mar uu ka baxsado warqada mar uu diido inuu yimaado waxaan kugu rafaad badan 3 bilood oo 10 habeen la amaan inta kale warqad dambeyn intaana buuq baan oo taagnaa iyo qaylo gacan baa xataa dhacdo gacan saar baa xataa dhacay ugu dambeyntiina waanu kala tagnay oo waanu kala soconay aniga iyo inantiina labadayadii maalintaanu kala tagnay dabadeedii markay ka soo wareegtay ugu yaraan intii dacwaddu soconaysay horta iyada markay kala tageen muddo bil iyo bara markay ka soo wareegtan anigu gacanteeda ku raadiyay telefoonkeeda waan hayaa waanan u sheegay inuu aniga tahay gabadhii hore u qabay awlaadeedina walaala yihiin anigana maxkamadda arrinteedu ku jirto haddaad xataa iman karto aad daawado ka noqon karto aad iman karto diyaar aad tahay arrintii halkaas ay ku dhamaatay annaguna waanu kala tagnay labadayadii awlaadoodna walaalay noqdeen labadayaduna saaxiib baanu iman ka nahay iyada calafkeedii baa u soo baxay inaanan anigu aqaano oo inaan aad u wanaagsan oo helidiina ayaan isbaray inuu guurkooda iminka dhacaan rajaynaya waxaanan ballan qaaday qofka qaybta ugu badan ka qaata inaan aniga noqonayo inantaas so inankaasna inaan aad ugu qanacsano qof reer dhaqan karaya weeyaan inantina saaxiib iyo walaalaan nahay awlaadayadina waa walaalo way wada ciyaaraan xaajigayagii hore egaskayagii wali gabadh mu guursan wali waa joogaa reerkii aan anigu caruurta aanu u wada lahayna waan baray oo anaa baray oo ku dhaca caruurtan waa ilmo hebel ninkana dhalay eedii adeeri ayay awowba u tiinay soo dhaweeya soo reer sheekadii halkaas ay ku soo gabagabowday aadna waan idin salaamaya dhamaantiin